Qofka hadduu ku riyoodo riyooyinka noocan oo kala waxay u tilmaamaysaa xoolo, maal, arsaaqad, isbeddel wanaagsan. Haddaad diiqado iyo faqrinimo, dhibaatooyin gaajo aad ka sheeganaysay, diiqa maaliya hadday ku haysay waxay kuu tilmaamaysaa bishaarooyin oo ah inaad kaga gudbaysid dhibaatooyinka oo Rabbi xoolo ku siin doono. بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبي ونكسو والعليال عاو موضوعا كهدلا وموضوع آد ومهمسن أو آد ونكسن ضد بدن أنا نجمد أهن أباهن موضوع نوعيادان أو كله waxaa jira dad qaybta committee su'aalo badan igu soo qoraayo sida ogtiin su'aalihii jawaab waan joojiyay laakiin waxaa sameeyaa oo qaybta YouTube-ka laakiin waxaan ka soo jawaabay qaybta TikTok su'aalaad halkan igu soo qortaan ayaa waxaan kaga soo jawaabaa intaad soo qaato qoraalka qofka ayaan TikTok ugu soo jawaabaa waxaan arkay isla su'aashadan qof igu soo celinaya qaybta YouTube-ka su'aal walbaad ii soo qortid qaybta committee waan akhriyaa inta badan waa qaadaa qaybta TikTok aan ka soo jawaabaa TikTok-na waxaad ii soo dhigi doonaa description-ka iyo YouTube-kayga hore su'aalihii jawaabo badan aad ka helaysaan asna waxaa soo dhigi doonaa description-ka iyo comment-ga ugu horeeyo TikTok-ga soo booqda follow dhaha insha Allah su'aalihiina jawaabihiina meeshaad ka heli doontaan mawduuca ka hadlaa waxaa weeye mawduuc kuugu bishaareynaa xoolo lambar 1 waxaa weeye haddaad riyaad ku aragtid qof meyd oo soo noolaaday qofka caadi ahaan waa taqaanaa waa qof beri hore dhintay laakiin riyadii dhexdeeda dib ayay nafta ugu soo noqotay waa qof quruxsan adduunka kula joogo caadi dhaqmaayo qofka haddaa riyo ku aragtid waxay kugu tilmaameynaysaa kugu bishaareynaysaa kheyr arsaaqad xoolo Rabbi xaggiisa kaaga soo socdo arrin kale oo yar ayaa raacinaya ka soo qaad qofkaas dhintay aad aragtay soo noolaaday ayaad u duceysay riyada dhexdeeda taa waxay tilmaamaysaa qofka aakhiradiisa inuu Rabbi u hagaajinayo hadduu asiga kuu dacay meydkaana inuu adduunka Rabbi kuu hagaajinayo yacni aragtada meydka oo soo noolaaday aad ay wanaagsan tahay janankeyga weynaa in badan waa kaga soo hadlay qofka hadduu ku riyooda asoo lacag dhulka ka aruursanayo lacag badan ee dhulka ka aruursanaysa xataa haba iska yaraato aruursashada lacagtan waxay tilmaamaysaa xoolo inuu Rabbi qofka ku arsaaqi doono xoolo oo maal heli doono wuxuu heli doonaa insha Allah qofka hadduu ku riyoodo asigoo malaay dabaayo dabitaanka malaaygan waxay tilmaamaysaa xoolo horena ugu soo hadlay muuqaal u qaasaha malaay keligiisaan ka hadli jiray haddaad riyo ku aragtid gabar quruxsan gabar aad u quruxsan hadday doonto gabar weyn ha ahaato laakiin ahaato mid xijaaban oo yacni asturan maaha mid qaaban gabadha hadday quruxsan tahay waxay tilmaamaysaa yacni qaabinaasho waxaan ku wadayaa qaabinaasho fool xun dhaqan aan muslim lagu aqoonin haddaad ku aragtid taa waxay tilmaamaysaa hadday iida daboolneed oo xijaabneed waxay tilmaamaysaa adduun albaabyada adduunkoo dhan inuu ku furmaayo hadday shaqo tahay hadday lacag tahay haddaad waxaa raadinaysa caafimaad waxyaabo badan markaa inuu ku hagaagayo sidoo kale cunug yar oo yacni yar haddaa riyo ku aragtid iidana muhiim ah inay xijaabnaato ilaa waa cunug yar taan waxay ka turjumaysaa xoolo iyo adduunku quruxsanaanay sidoo kale qofka hadduu ku riyooda asoo soo iibsanaya faras mise adoo faras saaran dadkan ka hadlaya waa dad deeqad maaliyan ka sheeganayo hadday riyada arkaan matal hadda gabadha la guursanin oo kale iyadoo faras saaran waxay tilmaamaysaa guur gabadha la qabo kale maxay darajo qiimo laakiin haddaa adi caadi ahaan aad ka sheeganaysid deeqad maaliyan dhibaatooyinkaasiiti ku hayay riyadan oo kale aragtid waxay kuu tilmaamaysaa xoolo walaalayaal caawa qaybta TikTok hal qof aan ugu soo jawaabayaa hal gabar marka insha Allah soo booqdo wassalaamu calaykum halkaas aan ku soo koobay barnaamijkeena caawa nool sheer gareeya